بسم الله الرحمن الرحيم إيد وناكسن داود يال قضبضة ورركة تيفي ساكيدين هاي وحاكمدا قرح مينو عيدا مكة ترسن كوة دولة سوماليا لغولا اكتاق قبل كالشبالة هوسي تليا صادق جون أوسو ساري أمر سامية تلياش سالقيدا بوليس كمقدشو كينيا أو كالومسيتيدي دا كم ممنوع دا حيبها أولو سوماليا قدوميها أغلبية بارلمان كينيا آدم برد عالي أو شاعية موقف كيسا موران كبدا سوماليا كينيا iyo dawladda Norway oo wiil Soomaaliya guddoonsiisay abaalmarin qaali ah wararka dibadda wararka TV saakidin haysa waxa kamid ah Ruushka wax kama jiraan ka soo qaaday dalab uga yimid madaxweyne Trump iyo banaanbaxayaasha Suudaan oo xiriirka u jaray militariga wadankaasi daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena ku cusub barta YouTube-ka fadlan subscribe barteena si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya qarax miino oo qasaare geystay ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya lagu eegtay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose iyadoo mas'uuliyadda qaraxaasina ay sheegteen ururka Al-Shabaab ciidamo ka tirsan kuwa Bangarafta ee dawladda Soomaaliya ayaa qarax miino lagu eegtay deegaanka Al Yaasir oo ku yaala duleedka degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose qaraxa oo ka dhashay miinada dhulka lagu aaso ayaa helay gaari Cabdi Bilaa oo ay wateen ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa Bangarafta kuwaas oo deegaanka marayay ila wareediye ayaa waxa ay noo sheegeen in qaraxa dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya kuwa oo saarnaa gaariga qaraxa miino uu saameeyay Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxa ayaa sheegay in sidii ay u qorsheeyeen weerarka oo u dhacay isla markaana qasaare xoog badan uu gaarsiiyay ciidanka dawladda oo ay la eegteen qaraxa waxa kale oo Al-Shabaab ay sheegeen inay gubeen gaari Cabdi Bilaa oo ay qarxiyeen siday hadalka u dhigeen ka oo saarnaa ciidanka militariga Soomaaliya saraakiisha ciidamada dawladda ayaa waxa ay sheegeen in qaraxu uu jiro balse qasaaraha ka dhashay uu kooban yahay Al-Shabaab ayaa maalmihii u dambeeyay kordhiyay weerarada qaraxyada ah iyo dilalka ay ka fuliyaan deegaanada ku xiran magaalada Muqdisho taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadaq Joon ayaa soo saaray amar saameeyay taliyayaasha saldhigyada booliiska Muqdisho taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan oo loo yaqaan Saadaq Joon ayaa soo saaray amar saameeyay taliyayaasha saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir saraakiisha maamusha kontaroolada magaalada iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir Saadaq Joon ayaa amar ku siiyay taliyayaasha saldhigyada degmooyinka inay heegan buuxa galaan inta lagu guda jiro maalmaha fasaxa Ciidul Fidriga sidoo kale waxa Saadaq Joon oo amar uu ku siiyay saraakiisha maamusha baraha kontarool ee caadiga iyo kuwa gurgura inay adkeeyaan ammaanka isla markaana ay si mirqab leh u baaraan gaadiidka raaxada ee isticmaala magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow oo fulinaya amarka taliya Saadaq Joon ayaa dhankiisa gudoomiyaasha degmada ku amray inay kormeeraan shaqada dhanka ammaanka maalmaha lagu guda jiro munaasabada Ciidul Fidriga iyagoo kaashanaya gudoomiye ku-xigeenada iyo waaxyada degmooyinka gudoomiye waaxyada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu amray inay sameeyaan kormeer dhanka amniga isla markaana ay soo gudbiyaan goobaha amni darrada laga soo abaabulo hadii ay dareemaan falalidii ku ah ammaanka magaalada Muqdisho sababta foojignaantan loo geliyay ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya ayaa waxay tahay baaqdin laga qabo in weeraro ururka Al-Shabaab ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho dawladda Kenya ayaa kalluumaysatada wadankeeda ka mamnuucday xeebaha ku dhow Soomaaliya dawladda Kenya ayaa amar ku soo rogtay kalluumaysatada ka jalaabtay xeebaha ku dhow Soomaaliya kalluumaysatada ayaa la faray inaysan ku dhawaan biyaha Soomaaliya sidoo kalena aysan tagin deegaanada ku dhow suuhdinta Soomaaliya ee dhinaca badda Jaseba Kenyeri oo ah gudoomiyaha gobolka Lamu ayaa sheegay in kalluumaysatada ay gaari jireen ilaa iyo xeebta Ras Kamboni ee Soomaaliya hase ahaatee ay adag tahay in halkaasi hadda ay tagaan wuxuu intaas uu ku daray in ciidamada kala duwan ee Kenya ilaalo gaar ah ay ka hayaan dhaqdhaqaaqa xeebaha Kenya ee u dhow Soomaaliya halka uu sheegay in ganacsi u badan kontraband laga geliyo Kenya sidoo kalena dadka lagu kala gudbiyo Master Kenyeri ayaa dhinaca kale kalluumaysatada Kenya ka qaaday xayiraad dhinaca kalluumaysiga oo habeenkii ahayd taasoo saarneyd waxa uu sheegay in kaliya ay ka kalluumaysan karaan bariga Lamu gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa shaaciyay mowqifkiisa ku aadan khilaafka badda ee u dhaxeeya dawladaha Kenya iyo Soomaaliya
xildhibaan aadan barre ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya isla markaana laga soo doorto degmada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ayaa lagu tilmaamay inuu yahay shakhsiga saddexaad ee ugu awoodda badan dalka Kenya marka laga soo tago madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa. Mr. Ducaale waxa uu madax ka yahay tirada ugu badan ee xildhibaanada baarlamaanka ugu jiro xisbiga talada haya ee Kenya, waxa uuna si aad ah ugu dhow yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto. Kenya muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya waxba nagama gelin, laakiin anaga yeysan nagu xadgudbin ayaa uu yiri xildhibaan aadan barre ducaale oo la hadlay idaacadda BBC-da. waraysi uu siiyay maalintii Isniinta ahayd laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa aadan ducaale uu ku sheegay in mowqifkiisa ku aadan khilaafka badda uu kala midaysan yahay dawladdiisa Kenya sida uu hadalka u dhigay. nin Soomaali ah baan ahay, laakiin waxaan ahay Soomaali reer Kenya, waxaan ahay wadani qayb ka dawladda Kenya. mowqifkayguna waa in dhulka ama badda ay Kenya leedahay uusan qof kale qaadan karin, ha ahaato Soomaaliya, Tanzania ama waddan kale, ayaa uu yiri xildhibaan barre aadan ducaale. hayeeshee Mr. Ducaale ayaa dhanka kale hoosta ka xariiqay inuu jecel yahay sida khilaafkaasi lagu dhammayn lahaa hannaam diblomaasiyadeed oo nabad ay ku dheehan tahay. wuxuu si cad u sheegay in xalka uusan ahayn mid ku fiican in maxkamad loo raadiyo, maadaama annaga iyo walaalaheen Soomaaliya uu naga dhaxeeyay xiriir dheer oo ah xagga dawladda iyo xagga shacabka. mar walba waxaan dhihi lahaa khilaafkaasi waa in lagu xalliyaa si wanaagsan oo labada dawladood ay arrinta hoos u dhigaan. maxkamadaha iyo buuqa kale waa laga fiican yahay sababtoo ah Soomaaliya waxay dhahaan labada qof ee walaalaha ah khilaafkooda inuu dariskooda ogaado xitaa looma baahna, ayaa uu yiri xildhibaan aadan barre ducaale. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in shakhsi ahaan uu dadaal badan ku bixinayo isla markaana uu ka shaqaynayo in la soo afjaro khilaafka labada dawladeed isla markaana ay wada hadlaan labada hogaamiye. wuxuuna intaas ku daray in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu diyaar u yahay in afgarad lagu dhameeyo khilaafka ka dhex jira labada dawladood. wanaagga u dhaxeeya labada wadan ayaa ka badan khilaafka, marka waa inaan u badanaa dhinaca wanaagga, ayaa uu yiri xildhibaan barre aadan ducaale. dawladda Norway ayaa wiil Soomaali ah guddoonsiisay abaalmarin qaali ah kadib markii uu badbaadiyay carruur ku jiray guri dab uu qabsaday. waxay ahayd xilli dambe oo habeen ah, hooyo iyo walaalo ayaa jiifay, keligay ayaa reerka ka soo jeeday, fadhiga ayaa wax ku akhrisanaya, ayaa uu yiri Maxamed Xuseen. wuxuu arkay gurigii ay deganaayeen oo gubanaya. wuxuu bannaanka u saaray dhammaan dadkii ku jiray qaybta kore oo iyagu ay ku noolaayeen. markii aan bannaanka u soo baxnay waxaan aragnay wiil yar oo isku dayay inuu daaqadda jabiyo. waan caawiyay oo aan ka soo bixiyay dhismaha, ayaa hadalkiisa uu ku daray Maxamed Xuseen. wuxuu ii sheegay in walaalkiis uu ku jira gudaha guriga, markaas ayaa gudaha u galay si aan u caawiyo wiilkaasi oo 8 sano jir ahaa. wiilka yar ee uu badbaadiyay wax miir ah ma lahayn, wuxuuna ku caburmay qiiqa. xilligii uu guriga galay dabka ayaa xoog badnaa, wuuna arki waayay intii uu guriga ku jiray sida uu BBC-da u sheegay. Maxamed ayaa sheegay waxaan isticmaalay tooshkayga taleefanka, waxaan arkay isagoo maradii iyo dharkii kale ee uu xirnaa ay gubteen. markii uu soo badbaadiyay wiilka yar Maxamed ayaa waxa gacmaha ka gaaray dhaawac fudud, waxa uuna ku caburmay qiiqa. isaga iyo cunugii uu badbaadiyay waxaa loo qaaday isbitaalka. waxay ahayd xilli aan la sugi karin dabdamiska maadaama dabku aad u xoog badanaa, qaybo badan oo gurigana ay aad u gubteen. Maxamed oo guriga ka galay dariishadda wuxuu qiray in Allah uu ku hagaajiyay in ficilkaasi uu sameeyo. haddii aan sugi lahaa dabdamiska, cunugaasi nolol laguma soo badbaadin lahayn. markay yimaadeen shaqaalaha dabdamiska waxay ahayd mar uu guriga aad u baaba'ay. Maxamed Xuseen ayaa waxa la guddoonsiiyay bilad dahab ah oo ah abaalmarin la siiyo dadka naftooda u biimeeya badbaadinta nolol kale. waana qofkii 15aad ee dawladda Norway ee siisa abaalmarintaasi. anigu ficilkaas uma samayn in bilad la igu siiyo, waxa ii muuqatay oo kaliya in cunugaasi yar uu u baahnaa in la caawiyo, ayaa uu yiri Maxamed Xuseen. caafimaadka wiilku uu badbaadiyay ayaa hadda soo hagaagaya, waxaana uu aadaa iskuulka. Maxamed ayaana weli la xiriira qoyska wiilkaasi. waxay igu noqotay farxad weyn oo aan marnaba filayn, maadaama aan horey la igu sheegin
ayuu yiri in la isiinayo abaalmarin. gudoomiyaha gobolka uu degan yahay oo ku booqday iskuulka uu dhigta Maxamed ayaa gudoonsiyay abaalmarintaasi. wararka dibadda wararka TV saaka daawadayaal idin hayna waxa kamid ah dawladda Ruushka ayaa wax kama jiraan ka soo qaaday dalab uga yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Ruushka ayaa wax kama jiraan ka soo qaaday dalab kaga yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegayay in diyaaradahooda ay duqeynta ka daayaan gobolka Idlib ee dalka Suuriya. gobolkaasi oo ay jabhadaha gacanta ku hayaan ayaa laga soo sheegayaa in dad badan ay ku dhinteen kadib markii ay duqeeyaan diyaaradaha dagaalka ee waddanka Ruushka. afhayeen u hadlay aqalka looga arrimiyo Ruushka ayaa sheegay in kooxaha argagixisada ah ay weeraro aan loo dulqaadan karin ka soo qaadaan goobaha ay ku xoog badan yihiin iyagoo bartilmaameedsanaya shacabka iyo ciidamada Ruushka ee aaggaasi jooga. Idlib waxaa ku xoog badan kooxaha jihaad-doonka ah ee lala xiriirinayo ururka Al-Qaacida. Twitter uu horay u qoray madaxweyne Trump ayaa uu ku sheegay in Ruushka, Suuriya iyo Iiraan ay si aan kala sooc lahayn Idlib ugu leynayaan dad aan wax galabsan, wuxuuna sheegay in dunida ay fiirsanayso waxa uu ugu yeeray kawaan dadka lagu leynayo. banaanbaxayaasha waddanka Suudaan oo xiriirka u jaray militariga gacanta ku haya waddanka Suudaan. hogaamiyaasha mudaharadayaasha Suudaan ayaa sheegay inay xiriirka u jareen militariga kadib rabshadihii Isniintii ka dhacay Khartoum, kuwa oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 12 ruux oo mudaharadayaal ah. qolyaha dimuqraadiyadda u oleeya ayaa wada hadal kula jira militariga iyagoo ka arrinsanaya sidii loo soo dhisi lahaa maamul dusha kala socda sidii dadka dimuqraadiyadda uga guuri lahaayeen. dhaawacyada dad badan oo ku dhaawacmay rabshadihii Isniintii ka dhacay magaalada Khartoum ayaa la geeyay isbitaalada waaweyn oo ku yaala magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan. laamaha ammaanka ayaa rasaas ku furay mudaharadayaal Isniintii banaanbax ku horsameynaya xarun weyn oo militarigu uu ku leeyahay magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan, waxaana rasaastaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac dadka banaanbaxayaasha gaartay. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen wararka TV saaka waa naga inta.